PUBG وجيم سادان دبي سواليها وقبصتي عالم كا أو إيجل وأنا جيم كلها تأيس كوي مادان أما وضع عياران ويل قبض عرور حتى قوة وين كريب هذا برنامج كلمات وحكي ورا مدهنا حقيقة كدبت أكو قرصون عيارة PUBG وصور دولة مقال كن أو دمسترن ninka ciyaartan aasaasay ama sameeyay waxa lagu magacaabi jiray Darander Green waxaanu dhashay sanad barku 1976 ninkan waxa ku soo barbaaray ama ku soo koray xiran ciidan taas oo lahayd dalka Ireland haddaba ninka markii uu dhameeyay waxbarashada uu galay jaamacadda waxa uu ku takhasusay ama uu bartay farshaxanka oo marnaba ismu lahayn ciyaartan ayaad sama doontaa shaqooyinkiisu ka soo shaqeeyay wax kamid ah DJ oo ah muusinimada haddana waxa ku xigsiiyay fotograafnimada oo ah sawir qaadaha hadda waqtigii uu bilaabay inuu games ka hormariyo waxay sanadkii 2013 waxaan waqtigaas joogay wadanka Brazil waxay wadanka Brazil isku barteen gabadh Brazilian intaas ka bacdi waxay sameeyeen xiriir ugu dambeyntiina way iskursadeen laakiin wax badan bay joogeen oo xiriirkoodu ku soo afjarmay furneen waxaana u soo dhashay gabadh laakiin kan waxa soo dhan uu joojin oo waxa uu sii watay shaqooyinkiisii waxaanu diiradda saaray shaqadiisii ahayd inuu hormariyo gameska ilaa uu ka noqday hatiyahan haddaba ninka markuu ku soo laabtay wadankiisa Ireland wuxuu halkii ka sii qaaday ama sii bartay horumarinta gameska iyo applicationada sanad ka bacdina waxa uu safray dhinaca Kuuriyada Koonfureed waxaanu la xiriiray shirkadda horumarinta gameska ee Blue Hole kadib waxa uu sharaxay ciyaartan iyo fikradiisa iyo qaybaha kala duwan ay leedahay kadib shirkaddii way ku wanaacday halkaas ayuu ku soo dhamaaday heshiiskoodii way kala saxeexdeen haddaba sanadku markuu ahaa 2016 ayaa ahayd markii ay soo muuqatay ciyaartan PUBG oo caalamka oo idil si fudud ku qabsatay haddaba sanadku markuu ahaa 2017 waxay ciyaartan jabisay score waali ah scorekaas oo ciyaarisa ku horeysay aan jabin scorekaas oo ahaa in hal mar online haayeen 1 milyan iyo badh inta hadda ciyaartan wax lagu sheegay 400 milyan 400 oo ku kala nool dunida daafaheeda diintu maxay ka qabtaa gameska ama PUBG-gan daba gameska waxay noqdeen ama ciyaari waxay noqdeen qaar ku fidan caalamka oo idil dadkina waxay caadaysteen ciyaarista gameska haatanaade ciyaar lahayd mar iyo dhif caadi ba ahaan lahayd wax dhib ma keen lahayn laakiin waxay noqdeen qaar caadaystay oo maalin walba ciyaara oo joogteeyay hadda ciyaartan PUBG-ga update-keedii ugu dambeeyay waxa sanadada sujuudaysa si aad u hesho hub iyo tamar taasna maaha mid laga barayo oo waa mid uu ku khasban yahay haddaba ma xaraba inuu ciyaaro qof muslim ah ciyaaraha noocan oo kale ah kuwaas oo lagu weerinayo salanka haddaba marka laga hadlayo ciyaarta gameska oo dhan dhammaantood maahan qaar xun oo wax jir qaar madadaalo ah oo aan wax dhiba keenin laakiin hadda waqtigu isbedelay waxaana la gaadhay horumar ballaaran sidaas darteed intii baneed gameska wax noqdeen xaaraan sababtuna ay tahay waxaa jira games badan oo ka soo horjeeda diinteena islaamka tusaale ahaan siiyo waxaa jira geban badan oo marka qof disho waxaad helaysaa calaamado badan oo marka calaamadaha lagu siiyo waad guulaysanaysaa haddaba si aad u guulaysto mar kale waxaad ku qasban tahay inaad dad kala badan aad dishid oo waxba galaabsan dilkuna waa qaladka labaad ee ugu weyn islaamkeeda sidoo kale waxaa jira geban kale kuwaasoo lagu ammaano sixirkuna waa dembi waana dembiga saddexaad ee ugu weyn islaamka xitaa waxaa jira geemka qaar diinteena weeraraya waxay leeyihiin dad ma ka qarxiso waxaad helaysaa 1,000 dhibcood dad madiina qarxisan waxaad helaysaa 5,000 oo dhibcood sidoo kale waxaa jira games ay dagaalamayaan muslimka iyo gaalkii waxaana islaamka markasta ka dhigayaan qaar daciif ah oo wax laga gudbinayo kulligood isku soo duub waxaan sheegay oo dhan waa wada dembi waana xaaraan game kaste oo wax khaldan ka sheegay diinta islaamka oo fariin khaldan sidana waa dembi PUBG-ga marka la wada ciyaarayo waxaa jira dumar qaawan oo aan dhar xidhnayn ama dhar ku dhagan jirkooda kuwaas oo cawradooda qarinayn jirkoodana saas lagu arkaya taasina waa xaaraan sababtoo ah faaxisho iyo sino ayaa ka dhalanaysa halka PUBG-ga laftirkiisa way ku jirtaa sinadu waxaasana loo sameeyaa si uu game ku yeesho shacab badan gameska qaarna waxa ku jira khamaar qaarna waxa ku jira cabitaanka khamrada haddaba waxaas oo idil waa xaaraan xitaa dadaad u cabin uu gameka laakiin ku jiro waa dembi waana fariid dadban oo la soo raacinayo gameska kuwaas oo dhalinta soo koraysa diinta nacsiinaysa haddaba ciyaartan PUBG-ga qofka ciyaar waxa ku qasban yahay si wax kasta uu doonayo helo inuu khamri cabo oo salanka weyneeyo intaan wax uu sameeyaa si uu helo waxyaabaha uu doonayo waxyaabahaas ku saaciidanaya inuu geysto dilkuna waa xaaraan shirkiga laftirkiisuna waa dembiga ugu weyn ee la galo haddaba dhammaan waa xaaraan ku sii darso dilka qaawanaashaha muusiga kulligood waa xaaraan isku soo wada duub haddaba kulligood ciyaartan PUBG-ga waxay weynaynaysaa ama fikrad ka dhigaysaa salan caabudista kaasoo si macaan loo weynaynayo haddaba iska jir geemisida noocan ah waxaad ku jirtaa khatar lagana yaabaa in diintiisa ka baxdee intaas ay maanta doo barnaamijkan nugu yahay inta ku kulmayno barnaamijkan mida waxaan naga tagnaa sidaas wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe
oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xidhan channelkayga Xamse Jooqane. nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iidi doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh.